بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخرسكو sidaynu wada ognahay waa quudka maskaxda sida ay cuntada u tahay quudka jirka sidaa darteed waqtigan oo aynu ku jirno duni casri ah oo aqoonta iyo xogtu ay hoggaanka u hayso waxa lagama maarmaana inaad tahay qof si joogto ah wax u akhriya si aanad uga hadhin tareenka haddaba caawa ama maanta kolba kii ay ku tahay waxaynu soo gudbinaynaa 9 buug oo haddii aad akhrido waliba aad dabaqdo talooyinka ku jira si weyn ay wax isaga bedelayaan noloshaada buugga koowaad Miracle Morning ama mucjisada subaxa ee uu qoray qoraaga Hal Elrod waa buug fudud fahankiisuna aanu adkayn kaasoo ka hadlaya faa'iidada ay toosidda xilliga hore u leedahay nolosha qofka iyo saamaynta wanaagsan ay guud ahaanba ku yeelan karto noloshiisa hal wuxuu ahaa qof waqtiyada ka mid ah galay shil culus isla markaana ku fashilmay dhammaan qaybaha noloshiisa wuxuuna la noolaa niyad jab aad u weyn haddaba buuggan wuxuu ku soo gudbinayaa sidii uu uga soo kabtay xaaladaas adag kadib markii uu naftiisa ku tababaray inuu tooso 5 subaxnimo waxa xusid mudan in diinteennu ay noo sheegtay faa'iidooyinka ay leedahay in loo kaco salaada subax isla markaana aan dib loo seexan waana waqti barakaysan sida uu inoo sheegay nabigeena suubani nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee buugga labaad Sixru Tartiib af Soomaali ahaana noqonaya mucjisada kala habaynta waa buug Jabaaniis ah oo ay qortay gabadh lagu magacaabo Marie Kondo loona turjumay Carabi waa buug ka hadlaya kala nidaaminta nolosha sida kala habaynta goobtaada shaqo gurigaaga waqtigaaga iyo dhammaan qaybaha nolosha taasoo ay qoraagu tilmaamayso faa'iidada ay u leedahay guusha qofka inay kala nidaamsanaato noloshiisu buuggani waa mid si weyn ugu faafay dunida wuxuuna si weyn uga gadmay wadamo badan oo dunida ah buugga saddexaad Rules of Life ama xeerarka nolosha waa buug fudud akhriskiisuna aan waqti badan ka qaadanaynin laakiin waxa ku jira talooyin la yaab leh oo aad ku dabaqi karto noloshaada buugga afraad Men Are From Mars Women Are From Venus waa buug cajiib ah oo ka hadlaya kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka wuxuu anfacayaa qofka hadda guursanaya ama si guud raba inuu uga faa'iideysto xidhiidhadiisa jinsiga kala dhaxeeya wuxuu si faahfaahsan ku tusayaa habdhaqanka ay la gaarka yihiin raggu sidoo kalena habdhaqanka ay dumarku kaga duwan yihiin ragga waxana ay taasi sahlaysaa inay fududaato habdhaqanka labada jinsi hoosna uu u dhaco isqabsigoodu maadaama uu midba midka kale dabeecadiisa yaqaano buugga shanaad waxa iska leh Marcus Aurelius laguna magacaabo At-Ta'ammulaat waa buug aad u qadiimi ah oo soo baxay waqti fog laakiin ka hadlaya afkaar la jaan qaadaysa waqtigan casriga ah taasoo ka caawinaysa inaad si guul uga gaadho dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha buugga lixaad Limaada Nanaam maxaynu u seexanaa waa buug weyn oo u baahan maskax soo jeeda waana buug aan ku habboonayn qof hadda wax akhriska bilaabaya waayo waxa macquul ah maadaama uu buug weyn yahay inaad si fudud uga niyad jabto laakiin si guud waa buug cajiib ah oo ka hadlaya faa'iidada hurdada iyo saamaynta ay ku leedahay nolosheena dhibaatooyinka hurdo yaraanta sidoo kalena wuxuu ka tala bixinayaa saacadaha hurdada ee qofka ku habboon inuu seexdo hurdo yaraantuna waa sababta keenta dhibaatooyin badan sida warwarka diiqada niyad jabka iyo inaad ku fashilanto qabashada hawlaha muhiimka ku ah buuggan waxa qoray qoraal lagu magacaabo Matthew Walker buugga toddobaad Atomic Habit buuggan waxa qoray James Clear waa mid ka mid ah buugaagta ugu fiican ee laga qoray kasbashada caadooyinka waxaana macquul ah inuu noqdo buugta farakutiriska ah ee aad Ilaahay ugu mahad celiso maadaama uu ku waafajiyay akhrintiisa si guud waxa uu uga hadlayaa caadooyinku siday u samaysmaan heerarka ay maraan iyo sida loogu bedelo ficil si maalinle ah u dhaca sidoo kale waxa uu ka hadlayaa caadooyinka xunxun iyo sida la isaga daayo hubaal waa buug aanad ka qoomamayn doonin akhrintiisa buugga sideedaad waa buugga uu qoray Paulo Coelho ee Al-Khimiyai waa buug waqti hore la qoray kana hadlaya horumarinta nafta iyo sida uu qofku ku ogaan karo awoodiisa gudaha ee aanu dareensanayn waa buug aad u fiican oo dhinac kale ka tusaya sida aad markii hore naftaada u arki jirtay buugga sagaalaad Rich Dad Poor Dad aabbahoodana aabba sabool ah
waa mid ka mid ah 3 buug ee ugu fiican kuwaasoo abid laga qoray dhaqaalaha iyo abuuridda ganacsiga. waxaa qoray Robert Kiyosaki. waa mid ka mid ah buugaagta dunida kaga qaylisiiyey ee bedelay afkaar badan oo laga aaminsanaa markii hore ganacsiga iyo lacagta. wuxuu ku barayaa marka hore farqiga u dhaxeeya qaab-fakarka dadka taajiriinta ah iyo kuwa saboolka ah, lacagta iyo sida ay u shaqayso. wuxuuna si waafi ah kuu fahansiinayaa sida ay shirkaduhu u shaqeeyaan, sida saxda ah ee maalgashi loo sameeyo iyo sida ay dadka taajiriinta ahi uga badbaadaan in cashuur laga qaado. nasiib wanaag buugani isagoo af Soomaali ah ayuu dhawaan soo baxay oo ku turjuman luuqadeena hooyo. gabagabadii intaasi waxay ahaayeen 9 buug oo aanu arkaynay inay faa'iido weyn idin yeelan karaan. haddaba nala wadaag midka aad sida gaarka u xiisaynayso inaad akhrido. aad baa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum.